ما دام مقالك ugu horeeyo iyo muqaal xushmaysan muqaalkan ku hormari doona hadii aan leeyahay muqaalka ugu horeeyo daawadayaal oo tusin doona waxa waaye masaajidka weyn ee ku yaala dalka Turkiga ee leh intaas oo maaragtay minaaradood leh ee balaciisa aad yaabayso asaa laga sheekeynaya iyo taariikhdiisa masjidkaas waxa naga xusuusaa maaha مسجد عادي أو مسجد عادي كلي لو استعماله معها قبض الحيس لو استعماله والله الحيس تجا الله الحيس تجا أنا بري عن تركيا تجرد الحيس أنا لوجي ماشي أسمركي مسجدك وها حتى أوض الحيس تجا بدل مسلم هين لكن قابك يكون جلاير يسد يكون جلاير والله قرأ وقرنته وحقرنا شرعه لإلالنا مسلم أهاوها أهانن وتذكرت مسجدك وحيكون درين تركيا ما له الله الحيس كتجا مسجد كاس بحال مسجد السلطان أحمد waxa muuqaalkan kaga mahad celinaynaa wiil Soomaaliyeed oo magaciisu yahay Ibrahim Nuur Xaaji oo kamid ah ardayda Turkiga wax ku bartay asaas soo diray isaga ayaa soo diray oo isxil qaamay quruxda badan leh nala daawada سلطان أحمد جامسي وكمل مساجدة تاريخ دفوق عالمك هل كان تركيا أي كوم على مدة بدون الحسيالة ما أنتوا محمد جمنا نيجا إيو ساعتين خالص إيو ساعتين كاميرامان كوين إبراهيم نوضو أي كاميرا هذا فرح سنة ومن تاريخ سيدا أركيسان دويدا نبالغو ديمي ومن يعني وحلا بسي قرنيجي لحي تومنات نيا بس أفري تومنات اللي سوى مجال تاريخ واحد وكمل يعني مالها تركي كويا الله قديم جوا تركي واحد كويا لو جري سيدا وقتين وكجري جت الدولة العثمانيين وتضارب وغلي كنتم سنة معمول جت وهذا كان يقولها عالم كله وعمل الدنيا دم لو قصوا بالحيث تبعت تاريخ الأولى هي هو ريتش كله ما زلت هذا نقطة هنا سيدا أركيسان به هذا بقى وحويان ضد وضد الدنيا البيان كوكا لميت عاد ويا تركيا بوليس كنول طبعاً تو وضد أجنبية مجد كان سيدا أركيسان مجد كان سيدا أركيسان ومجد سي لو ديزاين جري يعني عجيب إذا عاد لو ياوي حلق الله بسي التكنولوجيا أو يله iyo sida maanta uu yahay oo xitaa uu yahay mid sidaan oo kale ama mid sidaan oo kale isma caalamka waa mid aad loo yaabay yani qaabka loo dhisay waxayna ku siinaysaa dadka muslimiinta ama gaar ahaan dadka Turkiga inay ahayn dad aad iyo aad cilmiga handasada ugu fog injineerinka aad ugu fog oo aad u yaqiinay xilligan aad u dhisi jiray waxa kale oo jira dhismooyin kale oo ayagana sidoo kale ku yaal oo ayagana leh maxaa la yiraahdaa masaajidda noocan oo kale ama dhismooyin taariikhi ah marka aad la yaabisid haddii aad ku qabatid majlis uu dhisan yahay waa aad karaysaa maxaa la yiraahdaa qaabka uu maxaa la yiraahdaa u design garaysan yahay dadka faraha badanna ee ku jooga qaybtan waa qayb yar oo ka mid ah masjidkan wuxuu leeyahay ilaa 6 minaarado wuxuu leeyahay maxaa la yiraahdaa يعني أفر إلى 6 الباب لو صدروا wuxuu leeyahay 6 qaybood camal oo lagu tukado markay ugu yartahay waxa ku tukan kara masjidkan oo ugu yartahay ku tukan karaysa ilaa 3,000 oo qof ay hal mar kaliya ku tukan karaysa waa masaajidda ugu weyn mid ka mid ah masaajidda ugu weyn caalamka uu ka tirsan yahay caalamka guud ahaan meel walba ayaa lagu imaanaya sida arkaysaan dad badan oo meesha joogana waxa weeyaan waxay sameynayaan sawir ay ka qaadanayaan maalin walba waxa ugu yaraan meeshan ku islaama ilaa markay ugu yartahay calaalisaamada iskuul 6 ilaa 7 qofood markay arkaan masjidka sidoo uu dhisay iyo dadka muslimiinta xismada iyo adeega dadku qabanayaan si uu soo dhawanayaan darteed ay u islaamaan waxa arkaysaan dadka markay soo galaan waxa la sameeyaa maro xijaab ayaa loo geliyaa gaar ahaan dadka reer galbeedka ka imaadaan يعني در ودياسنا جيرو أو ضد كلوجو سودوي أو أي كشانيان كذا مركز سوكران ده تنا محل إلى صورة القطان واحد بنا الله وقلادة إن سيدي ضد كمسلمين تا وكلاء مشاهد مشى الروانة تكن أنت بدنا مركز لد عن أي كو إسلامان أي محل إلى كو إسلامان سنا هذا كو شيء ضد بدنا يا كو إسلامان مسجد كان يبغون صوبته رعاد ولد عن المسلمين تسيد كو هذيجيا مسجد تسيد الله تسيد تاريخ ذا فوق وليه هاي iyo cilmiga iyo aqoonta ay lahayn muslimiintu
markay maamuli jireen caalamka injineeriyad aad u fogaayeen sida arkaysaanba dadku waxa weeyaan waxay xiranayaan waad arkaysaanba ay xiran yihiin oo arkaysaa dharkaas ayaa loo xiray si ay si ku meel gaara masaajidka ugu maxaa la yidhahdaa intay ku jiraan ay u xiraadaan waayo looma ogola masjidka in qof uu qaawan ama madax qaawan uu soo galo laakiin waxaa loo ogol yahay qof walba oo muslim aan ahayn iyo qof walba muslim inuu soo galo uu arko uu laakiin intuu masjidka ku jiro uu uu ilaaliyo dhaqanka islaamka dharka uu xidho sida arkaysaan masjidka sida hore ugu sharxay wuxuu ka mid yahay meelaha yacni taariikhda islaamka ee muhiimka ah ee maxaa la yidhahdaa adduunyada hadda farkutiriska ay ku yaallaan ka tirsan yahay waxaan geli doonaa meelo kalena waa diis tuusin doonaa waa tahay daawadayaal intaas waxaan kaga baxaynaa muuqaalkii wanaagsanaa ee uu noo soo diray ibraahim nuur xaaji oo ka mid ah ardada soomaaliyeed ee turkiga wax ku barta muuqaalkaas wuxuu ahaa masjidka weyn ee dalka turkiga ku yaala ee loo dalxiiska tago ee dhisnaa marka ay ugu yartahay 7 qarni ka badan oo la yiraahdo Suldaan Axmed aad baa u mahadsan tahay Ibraahim aad baan kaaga mahad celinayna muuqaalkaas aad baad u mahadsan tahay mar labaad Ibraahim anna waxaan leeyahay sida quruxda badan aniga oo aan dalka Turkiga nasiib u helin maadaama amino aad tagtay ayaan masaajidkaas nasiib u helay caaw inaan gudihiisa daawado aad baan ugu mahad celinayaa